بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسن داوديال ملك استضافة عالم كجوبتان كسو دوادا وركساعة الرئيس تي في حرنتي سدحي مقالة مقدشو أنا أقول باجي عبد الله السلادة يا إذن لسعو السينيسا مدحوين حسن الشيخ محمود وما أنت حلك كلا وريقة يا مدحوين يهوري الصوماليا محمد عبد الله فرماجو ما أنت يا وحا لو وداين مدحوينها الصوماليا حسن الشيخ محمود وشاني توبانك بشان لو دورتاي teendhada afisyooni uu xilka kala wareegayo madaxweynaha xilka ka sii dagaya in madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo munaasabada xil wareejinta oo ka dhacaysa barxadda madaxtooyada ayaa waxa ka qayb gali doona labada madaxweyne ee xilka isku wareejinaya gudoonka labada aqal taliyaasha ciidamada xildhibaanada iyo golaha wasiirada iyo marti kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha xilka ka sii dagaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbado kooban ka jeedin doona munaasabada xil wareejinta iyo xubnaha kale lagu marti qaaday wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xilka kala wareego uu agaasimaha madaxtooyada u magacaabi doono senator hore Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bakool ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha dawladda Imaaraadka ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa mar kale la kulmay madaxweynaha dawladda isku taga Imaaraadka Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan kulankan oo ka dhacay guriga madaxweynaha ayaa labada mas'uul ka wada hadleen iskaashiga labada dal iyo sidii dawladda Imaaraadka u xoojin lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya ra'iisul wasaare Rooble oo khamiistii soo gaaray Abu Dhabi ayaa madaxda ugu sareysay Imaaraadka la lahaa kulamo diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga iyo xiriirka walaalnimo ee labada dal ee walaalaha ah dawladda Soomaaliya oo maanta shir muhiim ah uga qayb galaysa magaalada Geneva ee dalka Switzerland wafdi ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar Nuur ayaa waxay ka qayb galayaan shirweynaha sanadlaha hay'adda caafimaadka adduunka oo maanta ka furmaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland shirka oo sanadkan halku dhig looga dhigay nabadda waa caafimaadkuna waa nabad ayaa wuxuu muddo dhowr maalmood ah ka socon doona magaalada Geneva wafdiga ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa waxa ay shirka ku soo bandhigi doonaan guulaha la taaban karo ee wasaaraddu ka sameysay dhanka horumarinta iyo dib u dhiska nidaamka caafimaadka dalka guulahan oo noqday kuwa tusaale looga dhigi karo wadamo badan oo ku yaala dunida kuwa ku jira wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ayaa Soomaaliya ka dhigaya wadan saameeyay isbedelo la taaban karo ee dhanka nidaamka caafimaadka Axmed Madoobe oo kulan degdeg ah iskugu yeeray golahiisa wasiirada madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa habeennimadii xalay shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn iskugu yimaadeen golaha wasiirada Jubbaland madaxweynaha ayaa golaha ugu warbixiyay safarkii uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho oo uu kaga soo qayb galay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga Facebook ee madaxtooyada Jubbaland ayaan bixin faahfaahintaas ka badan balse xogaha aan ka helnay kulankaas waxay sheegayaan in aad loo gorfeeyay sida gacanta Jubbaland loogu soo celin karo gobolka Gado dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaad 2 sano gobolka Gado ka haysatay Jubbaland waxaana hadda wali ku sugan ciidan ka kala tirsan nisa iyo militariga Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo habeen hore ka hadlay xaaladda gobolka Gado iyo qorshaha ugu degan dib u hanashadiisa maamulida gobolkaas ayaa rajo badan ka muujiyay inuu soo cishan karo Gado khilaafkii kooxda Farmaajo iyo hoggaanka Jubbaland ayaa sababay inay cadaawad xun isku qaadaan beelaha degan gobolka Gado iyo maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu hogaaminayo waxayna inta badan siyaasiyiinta reer Gado ku goodiyaan in Jubbaland aysan waxba ku darsan doonin inta Axmed Madoobe uu hogaaminayo Axmed Madoobe ayaa habeen hore balan qaaday in maamulkiisa uu qorshe cad ula tagi doono dadka reer Gado sida in maamulka degmooyinka aan loo magacaabin ayagu ay soo dooranayaan hadda kadib inuu gobolka ka hirgelinayo dib u heshiisiin iyo inuu u fasaxo dhammaan mashaariicdii hore looga xayiray gobolka Gado inta uu jiray khilaafkan
madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku tagay dalka Japan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray dalka Japan waa lugtii labaad ee booqashadan oo ah tii ugu horeysay Biden uu Asia ku tago ilaa intii uu madaxweynaha noqday. Biden ayaa 2 maalmood oo aad u mashquul badan halkaas ku joogi doona. maalinta Isniinta ah oo maanta ku beegan waxa uu la kulmayaa ra'iisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida iyo boqorka dalka. waxaa sidoo kale horumarin doona hindisaha ganacsi ee dalalka badan ku jiraan. talaadadana waxay is arki doonaan hogaamiyaasha India, Australia iyo Japan. waa shir madaxadeed ay yeelanayaan 4 wadan oo ka wada tirsan ururka GATT. Biden ayaa ka degay gadiga diyuuradaha Yokoto oo ah xarun ciidan oo ku taala duleedka Tokyo kadib 2 maalmood oo ku soo qaatay dalka Koonfureed. socdaalka Koonfureed ayaa ahaa mid hoosta ka xariiqaya in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu dhaqaale geliyo gobolkaasi. saraakiisha Mareykanka ayaa sii saadaaliyay in koonfurta waqooyi ay tijaabin doonto gantaalada hubka nuclear ka qaadi kara iyo bombooyin inta madaxweynaha Mareykanku oo gobolka koonfur waqooyi ayaa iska dhaga tirtay dadaal ay Washington ku doonaysay inay xiriirka kula sameyso. guud ahaan daawadayaal qodob-wareedkaas ayaa ugu dambeeyay warka saacadda Rays TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. anigu Baaji Cabdullaahi Salaad ayaa idin la socodsiinaysay. intaan dib dambe ugu kulmi doono warkan warka xiga aan idinku dhaafo sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.